وراده أنا الصومال لما كيمي وأن ديدي لبعضن يشان سنة كدي بعندي صعب مسير دول كصومالي كم نقط أدونا هدا دونيسا أدونا هدا دو أرديسا وصير أدونا هدا دو أرديسا إنه قرار فرنا إذا متعصب أو تصميم أنا جاي ورئيسه فكر كيف فيدراليزم كلو شيء مركو صوب حي وحا نقطة إن لسكوا ذا قبص جيد يعال سيدي برجر البادية والله هذا عال كان حقا نوها حقا نوها أنا جالس كلهين وحن دونيا إن سيدن هرجيس يبرعون ولا كرو إن نقول ولا كرو كسمايو يبوساسو يقال كعيو يملك سوان دون أساسا دوني ما أنت واحد شراء مترين حتى تريد ما قرنيه أنت الدولة الصومالية علن له برلمان له عيدا له حدود له الدنيا صعوتها إذنك هترين كريه تاسي وعلى حساب وحيكجو أنت هاي قيمها ومدة الصومالية الدولة ديدا أي كجو أنت وحالتهم أي دربان لا يراهضه مر وحالتهم أي دربان يا 4.5 أو بلا ما أنت عددك توبي هدي لا يراهضه والصومالي 4.5 يو 10.5 يو 6.5 واحد أنتوا نقطة ما الصومالي وناهين الصومالي ونصومها محقق الذي مركز هو 4.5 ما أنت ضدك فكرتها قوي لكن فشكرين هذا اللي لو مش يكرين وحي أركيين ومركز قياسته أيوة أكيدين أركيين هدي ضدك الله أقول 4.5 إن لو قيبيو وحلوك لا قيبيو إن عداد لا عيسو ومركز ليس آمن يو ومركز ومد عقل بقى أي دبعتك بحدونته لكن ما كبحذ أنا أقول مركز يلاحظوا عداد وح إيمان يسمى مركز ريالك هي جار نقضه وأنا جو حليسيو reerka iyaguna muxuu noqon doonaa reerka iyaguna waa in reerasiin noqdo reerka iyagu waa in la fasiin noqdo wali dhibaatadu way sii jirtaa dhibaato hay doonto ma aha haddana marxaata laga yahay iyadoo la isticmaalayay 20 sano wax ku dhow qabaa'ilka ama 4.5 ilaa imika cid walba qeelinaysa cadaalad lama hayo nidaam lama hayo wax la ilmayo laguma hakan waxa reer walba qeelinaya 4.5 كي أفرتي بيلود ماشتني بيلود ميدول بهذا ما تدريستو حكرت كذي يا شيء ده يدت في ودق على ميدول بوا قيلنيا وحلي إمك أنا واحد بنا يدي بس قبيل ولا بس دحدي سي كلا قيلنيا قبيل هدي لو سي كلا قبيو ومدة الصومالية 4.5 معها وبقولال قبيل وين أي سين أونسا واسك سين أونسا يعني عيد مركا أقبليسا ورنتي ملكو يستاجس مجتو marka dadkii mooyay in dawladnimo lagu gaaraya maanta waxay u baahan tahay inay runtii iyaguna in arkayaan iyaga laftoodii hadda mid kale oo ka khatar badan baa jirta waa taan anigu socdo waa taa federalismka Soomaaliya aan ka xumay dad badan oo Soomaaliyeed oo qaba wax garadi inay joogan ama ay maqlayaan ama ay dhageysanayaan laakiin maanta waxa la jooga maalin cad Soomaalidu dhaqankeeda waxa la yiraahdaa ninkii reerkeena wax kala hadho qoodhay xaraadaba jabtay taa macnaheedu waxa weeyaan ra'yigaaga hadal sheeg berrina waa la noolan doonaa oo anigu adaan inta iyo hebel hadoo intii hebel baxdo ummadda Soomaaliyeed way jiri doontaa waana la arki doonaa federalismku waxaan qabaa waa arinta aan u leeyahay taariikhda Soomaalida ma soo marin baan qabaa khatar kaga badan ummadnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed waayo kun iyo 1984 waati la yiri Yurub baa Soomaaliya qaybisay oo u qaybisay 5 gobol ya 1884 Berlin taariikhdaas markii ummadda Soomaaliyeed ay dawladda noqotay waxa loo aqoonsaday inay noqoto baal madow oo ku yaala taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaana loo aqoonsaday inay noqoto dulmiyadii ugu waaweynaa ama dambiyadii ugu waaweynaa ee ummadda Soomaaliyeed uu gumaysiga qabsaday ka galay oo aan mid ka weyn la sheegin mid ka weyn lama sheegin inay Soomaaliya oo mida loo qaybiyay oo loo jarjaray 5 meelood waxay ahayd dambigii ugu weynaa
ee ay ummadda Soomaaliyeed u haysatay dadkii qabsaday laakiin maanta yaa qaybinaya Soomaaliya Soomaalida qaybinaysa waxa weeyaan ma la jiifiyana banaanba la jiifiyana banaantii wadaadkii laga sheegay wixii qarnigii 19 dabayaqadiisii Soomaalida dambi ku ahaa iyo dulmi laga galay maanta way ku yihiin ma danaynayno qofka ku sameynaya ka uu yahay inuu Soomaaliya inuu mid kale yahay ma aha dambigu waa dambi dulmigu waa dulmi cid sameynaysa kuma xidna waxaan si markhaati ka ahay anigu oo aan rumaysnahay qarnigii 19 dabayaqadiisii sidii Yurub u qaybsay Soomaaliya ayaa cadaalad dhaanta sida maanta Soomaalida ay u qaybinayso xasan waxa sheeko Soomaaliyeed baa jirta carruurta looga sheekay oo tiraahdo islaam baa xaabo gurtay way qaadi kar weeyday markay qaadi kar weeyday ayay kamay gurine xaabo kale ku gurtay waxaan taa ugu maahmaahaya waxay la mid tahay ummadda Soomaalidu mashaakil baa ku dhacay xaq waxa ahaa oo sax ahaa inay raadiso wax ay dhibaatadeeda ku xalisho xal ku hesho waynu isku daynay Soomaalidu isku dayday say doonto baa isku daydo markay xalismi weyday ayaynu niri oo ay la mid tahay aan mashaakilad kala abuuro kuwan Soomaaliya xalin kari waayeen waxaan haysan Soomaaliya xalin kari waayeen aan mashaakilad cusub abuurano dabeetana aan kuwa ka hadalo waxaan uga jeedaa waqti yar ka hor intaan federalismka laga hadlayo la wadin tuulo kasta iyo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya kamid ah laguma muransanayn meesha ay tahay cid leh iyo xagga raacsan tahay waxa la isku raacsanaa inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaaliyan leedahay soo sida maaha laakiin fikirka federalismka lagu sheegaya markuu soo baxay waxa noqotay in la isku wada qabsado geed iyo ceel sidii bari reer baadiya oo la yiraahdo ceelkan xaggan u ahaa iyo annaga iska lahayn waa ta imika aynu leenahay xaajigii gaalkacay ka hadlay gaalkacayo weligeed waa la yaqaan in magaalo Soomaaliyeed tahay oo dad Soomaaliyeedna leeyahay waa la yaqaan maxaa cusub marka waxa cusub fikirkan cusub la qaatay waxa uu abuuray oo ah xageed magaaladan raacaysa ma state-kayga ma soo taada waa state-kayga taada ma taasoo qura ma gaalkacayo qura ma waa sida ay u badan tahay ba imika وسيد بنتايب إن لا يراهدو Soomaalidu iyadoo dagaalkii qabiilka ka xiisa dhacday oo dareentay dhibtiisa ayaa dagaal kale oo ka xun oo ah geedkayga iyo gobolkayga ayaa loo abuuray waana ka aynu ku wada indhalaan maanta siyaasiyiinta Soomaalidu siday u badan yihiin aqoonyahanka Soomaalidu sidoo u badan yahay waa tamaanta haddaad tiraahdo war waxan waa khalad waa ta burka madaxa burku ku dhacayo exactly waana dhab laakiin waxa fiican in cidii difaacaysana ay hadasho laakiin dadka Soomaaliyeed ee diidani ay yiraahdaan waxan dan Soomaaliyeed ma aha taariikh bay noqon doontaa waxaan isleeyahay waxa fudud oo sahlan in la yiraahdo dawladda Soomaaliyeed waxay ka dhisan tahay ummad Soomaaliyeed oo isku mid ah iyo dal Soomaaliyeed oo ay leeyihiin waa dal iyo dad leh oo uu ka dhaxeeyo oo aan u kala qoqobnayn oo aan u kala xariiqnayn oo aan u kala soconayn laakiin haddii la yiraahdo halka markaan aad uga hadlayo waxaan aad uga hadlayaa aniga laftaydu waxaan ka imid Soomaaliland waxaan u malaynayaa dambiga kala qaybinta inta ugu badan in marka Soomaaliya wada hadlayso in anagu tuurtu ridin laakiin waxaanu leenahay hadda waxaan anigu leeyahay waxaan la yaabaa nin baa waxa la sheeko buugta ku qoray carruurta loo sheegi jiray ma aqaan marka mid waxa annaga liin la leedina mid qarash istu sheeko noocaas ah jirta anagu liin la leedina mid qarash istu waxaan uga jeedaa
nuxur kuma jiro macnana kuma jiro aqoonina kuma jirto wallahi siyaasadina kuma jirto dana kuma jirto wax ka sahlanina ma jiraan in la yiraahdo waa dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo aan leeyahay oo aan shuraaka ku nahay waa cadaalad waa qurux waa wax fudud oo la sameyn karo hargeysa ku noolow saylac tag markaan doonana boosaasan dego markaan doonana aan dego kismaayo meel ka shisaan degiyo baar dheer aan dego the best waa wax fiican laakiin haddaynu siyaasad ka dhigano ku meeraaleysano halkan maad ahaan jirin iyo halkan ma tiid waa qiimo beel waxaan qabaa aad baan uga xumay xataa xukuumadda aan ka mid ahay ra'yigeeda waan dadku ku kala duwan yihiin dad difaacayaa jira nin baan ku wareedhe anigu Soomaaliland baan ka imi oo aan diiday 25 sano kadib aan idhi socon maysa dhulka Soomaaliyeed dadka Soomaalida ka mid noqoto adiguna hadda doonaysaa adiguna hadda u ordaysaa wasiir adiguna hadda u ordaysaa inagu golada fadhina inaad mid cusub abuurto samayso aniga warayso waxay qiimo leedahay ma jirto waxaan doonayaa inaan sidan hargeysa iyo burco ugu noolaan karo inaan ugu noolaan karo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo meel kasta oo aan doono saasaan doonaya sidaasna aniga dantayda iyo sharaftayda ku jirta qof kasta oo Soomaaliyeed aan wax qabaa intaas sharaftayda ku jirta marka intaynu ku murmi lahayn aan dhulkeena qaybino oo aynu dadkeena kala qaybino miyaan ka fiicnayn inuu ahno war weyn ugu fulan yahay naga dhaxay yaa dad degaba oo hay Soomaaliya dad degaba looma haye wax weeyaan yaan la inagu arkin oo la ogaanin meesha bannaan oo la soo buuxinine war yaan ku qeylnina asaas